السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليغا قاليغا وإذن سلامي دمان ميل والبا أدونيدا كجوجتين إلهي ها إذن حفظ الله إذن بركي أولاد باري الله نوغا ديغو انت عافماتك قبتنا إلهي عافماتك أسيادي انت حنوصلنا الله عافيه إرساقا دواسع إلهي هنوغا ديغو نعموينك إلهي نسينو كو شكري الله نوغا ديغو فضلا هدي أكو عصب تاي channel كينا هدى بنتي مختار سبسكرايب لايك شير كومنت نوغو عاوي dabcan sida caadada ahayd codsi waay qasab ma jiro haddii aa hore iila joogtayna aadan kuugu mahadcelinaa walaalahayga qaaligaa sidaa iiga barateen caawa waxaa noo wada qisooyinkii aa iiga barateen mid ka mid ah qisadan waxay ka dhacday dalka Kuwait gabar Maryam la dhahaayo oo 27 jir ah oo madallaqad ah gabar yar haysato ay ku dhacday qisadan Maryam waxay deganeed guri ijaar ahayd deganeed markii la soo furay guriga ehelkeeda uma laabanin guri ijaar ahayd deganeed cimaarada shuga ka deganeed gabar yar ay haysatay marka shaqaala u joogtay Maryam oo gabadh u haay iyadana way shaqeyn jirtay ilaahay amarkiisa Maryam waxay isbarteen wiil lagu magacaabo Rida wuxuu dhahay Maryam mar horaan aan maxaa dhahay ku daba joogay oo aan ku raaqibaay yani aan ku waardiyeynay marka waa ka helay waxaan rabaa guur xalaal ah marka waxay dhahday adiga mina Kuwait ma tahay mase ajnabi yaa tahay oo meesha degan markaas uu dhahay maya aniga Kuwait u dhashay waxaana ka shaqeeyaa oo dhahay dhaabit shurdaya ahay yani askariya ahay way dhahday adiga waa isfahmeen muddo markay isla socdeen oo wuxuu dhahay waa ku soo doonanaa waxaan rabaa inaan ku guursado family-gaagu u sheeg way dir waxba kama qabo ilaahay amarkiis intay family-ga u sheegin oo calaaqadoodan ee muddo oo shahr ay socoto yani hal bil amal ay macna isla sheekaysanooyin waxa dhacday Maryam inay dhahdo Rida adiga maxaa kugu dhacay ma soo socotid miya ani family-gayga rabaa inaan u sheego arinta laakiin adiga ma ku arkooy macna ma taqaddam lii dhahday markaas uu dhahay aratib umuri waxa iga kala daadsan insha Allah waa isku soo toosana waa ku imaana laakiin hadda ehelka ha u sheegin maalinka ku dhaha u sheeg ehelka la socodsii hayo waayay dhahday waa la jooga adiga maalin maalmaha kamid ah Rida wuxuu ugu imaaday marka ninka oo qisada ka sheekeynayo oo qisada Maryam ku dhacday ka sheekeynayo wuxuu dhahay aniga markaas 17 jir ahayo dhahay wiil yar oo muraahiqo oo hadda soo qaan-gaaray ahay qisadani 89kii dhacday marka wuxuu yiri cimaarada dhinac ka deganahay yani family-gayga aw cimaarada dhinac ka degan meesha le anigana aan joogaa oo dhahay marka wuxuu yiri ahdaatho dhan waa la socdaa yani wixii dhacayo dhan waa la socdaa ma sha Allah Maryam gabar aad u qurux badan waayo dhahay adiga wiil yar oo hadda soo baxaya oo dhahay markii oo casiradii Maryam ay ka imaanaysa shaqada banaanka istaaga oo dhahay marka anaga shugada naga koreysay deganta oo dhahay Maryam waxaan arko dhahay adiga muddo bil amal waxaan arkayo dhahay Maryam iyo Rida oo isla socdaan oo gurigooda isla galayaan mar gabadha shaqaalada ee cunugta Maryam ay dhashay iyo Rida oo baabuur isla korayaan magaalada aadayaan waxa soo dhan waa la socdaa oo dhahay marka qisada maxaa dhahay hadda waxa uga sheekeynaa oo dhahay bini aadanka wuxuu dhahay markay caafimaadka qabaan yani lama arko bini aadan caafimaadkiisa lama arko laakiin cudurkiisa la arkaa qofka markay dadka isku faraxsan yihiin ay asxaab yihiin ama ay isla sheekaysanayaan dadka lama wadaagayaan laakiin dhibka markuu dhaco qof walba ogaanayso marka wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah waxa dhacdo yiri waxa lagu soo baxay jiiraanka dhan oo ku soo baxay Rida oo albaabka Maryam isku dayay inuu jabiyo oo aad u garaacayo oo qaylinayo oo dhahayo marka adabahaj waa ku dilaa hadii nin kale oo ku guursaday inta adduunka saaranahay marka anaga bidaayada oo sheekada waxaan ku ogaanaynaa maalinkaas oo dagaal ka dhacayo oo Maryamna ay dhahayso aan laba maran ka dacwooday waa ku balaqay ay dhahayso maxaa dhahaa sheeg aan ku ogaano yiri qisada oo Maryam iyo Rida dhaxmartay waxa dhacday oo yiri maalinkaas waxa dhacday oo yiri muddo bil markay isla socdeen Maryam iyo Rida oo Ridana oo wax soo doonanaynin ama oo reerka u imaanaynin oo Maryam markay ku soo hadal qaadaba arinta guurka oo ka leexleexanayo oo maalin uu imaaday markaas wuxuu dhahay marka uu ogaaday yani inay Maryam soo rabootay oo mutaakid noqday inay jeceshahay oo maalin uu imaaday markaas uu dhahay waxaan rabaa inaan ku sheego bas
ma rabo dhahay waxaan kuu sheegi rabo يعني إن علاقتين أي واحد ودينتو أبي أقول لك شيء بس ما أبقى تقرب علاقتنا هنا محاوية هذا مركز وحوي وحرب إنه كل شيء لكن أو علاقتين إنه واحد ودينت مرة بو مركز يترم حقي شيء قربته مركز وحوي هاي أنيقة من الكويت مئه يعني جنسية دي الكويت ما أهل عسكرينا مئه يوله markaasay tiri maxaa marka waxay dhahday maxaa ka shaqeysaa wax shaqo ah ma hayo dhahay laakiin aniga jinsiyadna xataa ma haystay jinsiyad la ima siinin oo dhahay laakiin intaa ku dhashay aan ku barbaaray marka wuxuu dhahay ninka wuxuu u labisanaa yani nin oo wadanka u dhashay oo kaleeto toobkii cigaalkii imaamadii sidii u labisanaa oo dadka wadanka u dhashay u labisanayaan oo u labisanaa oo maba ka taqaanid dadka wadanka u dhashay kama taqaanid markaasay waxay tiri maxaa beenta iigu sheegtay yani kul hada fitra dad xaq caliya oo been ma ii sheegaysa intaasoo dhan bidaayada maxaa iigu sheegaysa markaas wuxuu dhahay bidaayada waxaan ka cabsaday inaa aa ididid yani oo aad tiraahid haddaadan dadkaas ahayn oo wadankan aad u dhalanin ma ku rabi inaa idhahdid marka haddana mutaakid waxaan ahay oo dhahay inaa i jeceshahay ana aan ku jeclahay oo maxaa lahaa kalsooni ee dhexdeena martay oo jeceyl dhexdeena maray oo aad i diideynin markaasay tiri qaldaanaa tahay aniga waxay dhahday jinsiyadeyda ninaa ahayn ma rabo inkaana aan ku jeclaado ama ayaan ku jeclaanin beenaa ii sheegtay kulli haadana waxaa kasii daranay dhahday cilaaqadeena waxayba ku bilaabatay been nin hadda been ii sheegay oo bidaayada been ii sheegay hadhowna been lay ku dhammaanaya ma kugu kalsoonaan kari markaasoo wuxuu dhahay wallaahi maya saas ma ahan waa ku jecelahay isla wuxuu dhahay iscalaaqa yani xub shay waayo dhahay jinsiyadna shay taani waayo mayay dhahday liano aniga sidaadaba beenaa ii sheegtay hadeertaanay dhahday bidaayada oo cilaaqadeena hadday been ku bilaabata been lay ku dhammaanay marka ma rabiyay dhahday ama jinsiyad kale ahaw ama jinsiyad hayso ama wadanka u dhalo aniga maxaa la dhahaa ii sheeg nin been ii sheegay ma rabo markaasoo wuxuu dhahay maya wallaahi amuut calaygu waa kuu dhiman rabaa waa ku jeclahay cilaaqadeena ha qaribin maxaa lahaa ii sheeg mar damba been ma kuu sheegaya halkaas sheega been kuugu sheega wallaahi been kale kuuma sheegin way diida calaa kulli xaal marka wuxuu yidhi khalaas maalmihii dambo wuxuu bilaabay inuu handado oo guriga ugu imaado oo ku qayliyo mararka qaar albaabka aysan ka furin marka dariskii oo dhanaa ogaaday dariska markay soo wada baxeen oo dariski ay dhaheen ninkan maxaa waaye saasaana dhex martay ninkan waa israbnay been oo ii sheegay beentiyan ku nacay faraha iga qaado markaasaa dhahay maa dacweysid waa dacwey 2 maraan dacweye dhahday wax iiga qabtana ma arkin labada mar aan kasoo ashtakoodana waxaan dhahay ninaa taxaruj igu sameynooyo ninaa maxaa la dhahaa ii sheeg guriga igu soo weeraraayo halayga qabtaan dhahay balaaq mar horaan ka gudbiyey laakiin wax iiga qabta ma lahan dariskiyaa marka waxay dhaheen mar dambe inta haddaa imaatid annagaa gacanteena kuugu wadayna askarta kuu geynayno yacni oo maxaa la dhahaa sheeg xabsiga kuu geynayno marka wuu ka gaabsaday wuxuu soo istaagi jiray markay shaqada ka imaanayso meelahaas oo ay soo marayso oo uu istaagi jiray meelahu ku handadi jiray wuxuu dhahay ballan waxaan kaaga qaadanina ani ahayn haddaa guursatid oo calaf aa ku yeelatid inaan ku dilo warkiis waxba kama soo qaadin marka ninka wuxuu yiri يوم من الأيام جاء نصيبها نصيب كذا إماذا نينا صوت دونت ولا سيو رح مريم هدي لسيه نينك مركا هالشرط يكون حرت وحيتري أنا كماشي عند جناه إن كجورة مرة بو ماشي عند جناه اللي صوت دقيق هذا علبتي إسكبدلي لهن هذا واحد عصب إيكين لهن أنا كل جاي لي عربة إن أكون رقمه وايو راي ما عندي مشكلة خلاص وحيو هاي مركا إلهي أمركيس وحو soo maqlay rida wuxuu maqlay in Maryam la soo doontay marka meelahay soo marayso uu istaagay wuxuu yiri ballan waxaan kaaga qaaday inuu ninkaas oo ku alfanin hadana ninkaas fursad aan ku dila aan waayo dhahay ina adi horta ka taqalusay marka Maryam way cabsatay cabsiya gashay way baxday wixii hadana mar saddexaad ay ka dacwootay marka waa la wacay markii saddexaad ay ka dacwootay waa la wacay rida waxaa la dhahay Maryam meelay taagan tahay hadii lagu arko ma talum illa nafsak خلاص oo dhahay balan oo qaaday خلاص waa la soo kala saxiixday wuxuu yiri خلاص meelay taagan tahay ma istaagay okay
nabaday ku ceeshaysay nolosheedii waa u socotay arooskeediyaa soo dhawaaday oo faraxeediyaa imaaday oo dhahay ilaahay amarkiisa maalinkii arooskeeda waxaa dhacday oo yiri hooyadeeda imaatay oo guriga iyada iyo naaga kale iyo hooyadeeda imaadeen oo cimaarada sameynayeen yacni guriga ay degan tahay maryam shukada ay ka degan tahay cimaarada ay guriga hagaajinayeen maryam iyo shaqaaladeeda iyo gabadheedana waxay u raaceen saalada arooska ee maryam u raaceen marka waxaa waaye carabta waxaa waaye ma ogtahay markii habeenkii arooska lasoo guurinayo sida anagoo kale 10 baabuur ilaa soo daba dhigaayo iyo arooskii aroosada oo nin kale baabuur kusoo qaadaya ima jirto ninka arooska iyo naagtiisa kaligooda baabuur soo qaadanaya gurigooda usoo hoyanaya iska daba orod ma jiro marka habeenkii arooska waxaa dhacdo yiri ilaahay amarkiisa waxaa imaadeen maryam iyo waxaa saalada arooska iska soo raaceen hooyadeed gurigay joogta iyo naaga kaleeto gurigay hagaajinayeen maryam iyo shaqaaladeeda iyo gabadheeda iyo ninka oo maryam aroosay bas gaari soo qaateen guriga imaadeen marka cimaarada horteeda markay soo istaageen waxaa jooga marka baabuur badana marka meesha baakin ku jiro oo cimaarada horteeda yaalaan baabuurtaas badan mid kamid waxaa saaran rida yacni ninkii oo ay diidaysa maryam saaran baabuurka wuxuu yiri wiilka oo ka sheekeynayo wuxuu dhahay baabuurta dhexdooda kusoo dhuuntay marka baabuurkana meel dheer oo kusoo baakintay baabuurta dhexdooda kusoo dhuuntay maryam iyo shaqaalada iyo ninka arooska gaariga qofna ma ka degin oo dhahay markay saas kusoo istaageen oo wuxuu kusoo dhawaaday dariishada oo qaybta meesha ay maryam fadhiday baabuurkana ninka arooska wadooy gabarta iyo shaqaaladana gadaalay saaran yihiin wuxuu imaaday wuxuu furay albaabkii oo maryam ridaa waaye baabuurtii kusoo dhex dhuuntay albaabka maryam ee ka saarneed gaariga oo saan u furay 3 xabadood marka wuxuu yiri aniga banaanka taaganahay wiil yara oo dhahay markaas maanta yacni waaba la faraxsan yahay cimaarada dhan waa laga faraxsan yahay maadaama maryam oo ridaa saas u dhibaayay muddo bilooyin 3 bilood camal nafta ku dhibaayay oo markii dambeeto amaan siiyay waxaa lasoo dhaweynayo dhahay maryam iyo arooskeedii macnaha arooskii iyo aroosadii lasoo dhaweynayo cimaarada dhan waa laga faraxsan yahay marka awal waaxid oo banaanka taagan oo dhahay aniga waa wuxuu yiri qaybta oo baabuurka ay ka fadhido imaaday albaabkoo furay 3 xabadood oo xabadka uga dhufto dhahay xabadii afraadna madaxa uga dhuftay subxaanallah xabadii koowaad markuu ku dhuftay ninkii baabuurka wado arooska ahay waa baabuurku ka degay haleelo uga dego waa cararay shaqaaladani cunugta yareeday gacanta ka qabatay orod waxay ku kortay cimaaradii marka maryam qayladeeda markii labada xabadii ugu horeeyeen ay ku dhaceen qayladeeda hooyadeed waxay ka maqashay kor habartiya soo degtay xabadii afraad madaxo uga dhuftay waana baxay maryam naf dhulka ma la dhicin oo dhahay laa xawla walaa quwwata illaa billah waxaa dhahay marka way soo degtay habartiyaa soo degtay aniga waa arkaayo dhahay saasa maxalla u taagnay ilaahay amarkiis ninkii waa orday oo dhahay ridaa waa cararay horta ridaa markuu naagta dilaayay ka horna waxaaba carar oo dhahay ninka arooska ahaa gabartii iyo shaqaaladii koreen habartii oo waalanoo waxaa soo degtoo dhahay dharka inay tuurato waxyar u dhiman yihiin maryam wuxuu yiri waxay wadato dhahay fustaanka abyadka ahay oo arooska dhiigaa daboolay oo dhahay aniga waa qalqalay oo yiri waxaa imaadoo yiri iscaafa imaaday ambalaasa imaatay maryam horta imeedkeeda la saaro dhahay ambalaaska naftaba dhulka ma la dhicin inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun marka waxaa dhacdoo yiri habartiya waxay ku waalatay oo dhahay markii oo meedka la qaaday yaa ibni shuuf galbaha yumkin Aisha marka nimankii oo qaadayeen meedka hooyadaas oo markaas yacni laxdadaas la taagan yahay hooyadaas saas noqotay niyadda u dhisayeen waxay dhaheen way fiican tahay way nooshahay bas isbitaalka laga gaarsiinaa askara imaatay magaa wuxuu dhahay xaafadda dhan shurdaa xirtay ambalaaskiya imaaday waa la qaado dhahay gabadhi meedkeeda la qaaday haddii xataa meedkii baabuurka la saaray hooyadeed waa quusan weyso dhahay meeqa maalin hooyadeed maryamaa dhimatay waa laga dhaadhicin waayo dhahay subxaanallah marka
wuxuu yiri sheekada 89 dhacdo yiri markaasna yani saan ma loo tatawarsaneen internet iyo adduunyo iyo telefoonad iyo adduunyo ma jirin oo dhahay iyo warbaahin iyo video la duubay ama xaafado camera lagu xiro camera oo maxalla maraaqib lagu xiro iyo ma jirin oo dhahay marka anaa marqaati ahayo dhahay qofka ugu horeeyay oo meesha jooga oo soo istaagay anoo ahay marka wax dhacayeen aniga askarta i wado dhahay ilaahay amarkiisa wuxuu yiri ridaa cir iyo dhul meel aan laga raadinin male asaarkiisa waa la waay muddo hadii la joogo dhahay oo Maryam adiga 4 bilood camal ee meeytan tahay oo maxaa la dhahay dhinsan tahay waxa dhacdo yiri ilaahay u naxariistay waxa dhacdo yiri ridaa in la helo markii ridaa la helay wuxuu dhahay shaahidka ana ahay markaasna aniga wiil yara ahayo dhahay subhanallah wuxuu yiri shaahidka ana ahay anaana ka marqaati ee markayga hore waa dhaho yiri aniga maxaa dhahay sheegli i wadayo dhahay markii ninka la helay oo meesha la igey maxkamadda ana ka cadeeyo dhahay ridaa waxa lagu xukumo dhahay dil min yoom kaanu dhahay aniga hadda aan ka sheekeynaa qisadaas dhacday min yoom kan waliyo dhahay warbaahinna kama arkin حتى وحوير مرر بدن مركي يعني أدونك أو كلا فرفرمي ولا سوي نادي ولا تطوري ولا البحي وح مرر بدن أسكت يودا هاي إنا عن حبسي قتوا أو عن سوق هذا الرضا حال كيس ولي وحول هاي ملف كيس وفرين هاي لكن ما عبدو هاي إلا إعدامي يعني حبسي دائما ما له حكومة ملا داي ملا دلي وح ورقه لقى هاي ملا هو حتى نينكي ميل جاي مال أقوله لكن أنا واحد يقول ردم بيسول له واجس أنا يراي أو ناكتس أو دل مركي للصاهل الدور بلاد كذب إن اللي حري أو لو حكومي دل لكن إلا يحد وحويري يعني ده كمركي وقف كمركي وقف دل أو جريمة قال أو مجرم أو يهاي إن الدل مركي للدل هين ولا أجانا ولا تاريخ دل الدل يصير اللي جود دل يوحوا هاللي ولا صوبا نيجا وبلي نكاس لم صوبا نيجا إلا حد ذا عن قصة كشيكينا سبحان الله إلهي أن حريست مسكين تاس إيضا مركا ولا ليه قالي عنيقنا وحاج على استقصاداس عنيكاس كسوق لقيستي إنا إذنك إذن لو ذاقو